ilmo yar oo hal sano ka yar oo ku timaado geeri maxayto si lama filaan ah sababta keentayna aan la aqoonin. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waa Dr. Saciid Maxamed Nuur oo loo yaqaan Dr. Saciid Soos, ahna dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca carruurta iyo dhallaanka, kana howlgala isbitaalka Kaafi oo ku yaalla Miraha Zobo. Waxaan rabnaa maanta inaan wacyigelin ka sameyno arrin la yiraahdo sudden infant death syndrome ama sudden unexpected infant death syndrome, oo ah ilmo yar oo hal sano ka yar oo ku timaado geeri maxayto si lama filaan ah sababta keentayna aan la aqoonin. Marka waxaan rabnaa in waalidiinta ka wacyigelino marka jiradaas ama xaaladaas conditionkaas ka hortag may leedahay ama wax looga hortagi karo ma jiraa. Marka ilmo caafimaad qaba oo meel uu ka xanuunsan yahay lahayn oo marka maxayto si sudden ah ama lama filaan ah u geeriyoonayo. Sababaha marka maxayto la yaqaano ama risk factors waxyaabaha la yiraahdo ee laga hortagi karo ayaan rabnaa in waalidiinta ka wacyigelino. Koow waxaa ka mid ah cunuga markii la siixinayo in la qaato qodobo muhiim ah oo in la tixraaca ay tahay. Qodobadaas waxaa ka mid ah in keligiis maxayto cunuga u jiifto, sariir lala jiifanayo una jiifanin, laakiin qolka lala jiifto, sariirta laakiin keligiis uu ku yahay. Qodobka koowaad weeye. Qodobka labaad oo muhiimka waxay tahay in cunuga maxayto loo siixiyo dhanka maxayto baaga ama dhabarka loo jiifiyo oo marka maxayto duldul aan u siixino. Marka qodobka saddexaad waxay tahay in sariirta la siixin ay tahay sariir fidsan oo maxayto siman, dharka saaranna ay kooban yihiin, ay xadidan yihiin. Marka qodobadaas waxay yareynayaan in naqaska uu ku dhago cunuga ama maxayto neefta ay ku xiranto. Qodobka labaad oo muhiimka wuxuu yahay lagu hortagi karo problemkaasi in cunuga maxayto laga ilaaliyo waxyaabo qaarkood oo sida masalan in la kululeeyo, aad loo kululeeyo guriga ama guri kuleel oo noqdo. Kuleelka marka la ogol yahay muhiimka waxaa weeye inuu noqdo 20 darajada heerkulka, marka qolka 20 ilaa 22 inuuna kor ugu badan ayaa la rabaa. Marka kuleelka zaa'idka ah wuxuu keeni karaa asna problem. Qodobka kale saddexaad wuxuu yahay cunuga maxayto in uu helo naas nuujin. Naas nuujinta waxay yareysaa problemkaasi oo ah inuu cunuga si lama filaan ah u geeriyoodo. Sidoo kale inuu helo waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah ka hortagga oo muhiimka u ah inuu ka fogaato hooyadii oo kale ama waalidkii meesha joogay ay ka fogaadaan inay sigaar maxayto ay cabaan. Marka gaar ahaan hooyada inay marka sigaar ay cabto asina wuxuu ziyaadinayaa problemka. Qodobadaas haddii la maro waxay yareynaysaa waxa loo yaqaan sudden unexpected infant death syndrome oo ah ilmo hal sano ka yar oo geeriyoonayo si lama filaan ah. Aad iyo aad